gobolada Mudug iyo Galgaduud waa laba gobol oo ku yaalaan bartamaha Soomaaliya yacni labadan gobol marka la tilmaamayo waxa lagu tilmaamaa inay yihiin laba gobol oo saxaro ah dhulkoodana uu aad u qalalan yahay biyari bahsan ay ka jiraan dhirtuna ay aad ugu yartahay kabaran haddii aan ku dhaho labadan gobol oo eedamahan loo jeedinaya ama dhibaatada juqraafiga ay ka jirto waxa laga helaa mid ka mid ah macdanaha ugu qaalisan dunida yacni macdan oo dunida aad loogu dandoonaya lagana sameeyo mid ka mid ah hubabka ugu khatarta badan dunida ayaa laga helaa labadan gobol yacni macdanta aan kuu sheegay ee laga helo labadan gobol oo kala ah Mudug iyo Galgaduud waxa ay tahay macdanta uraniumta taas oo laga sameeyo hubka nuclearka macdantan uraniumta kaliya lagama sameeyo ama faa'iido kuma lahan in laga sameeyo hubka nuclearka sidoo kale waxa laga dhaliyaa korontada yacni koronto raqiis ah ayaa laga dhaliyaa bacriminta ayaa loo adeegsan karaa baaritaano la sameeyay wixii ka dambeeyay sagaashameeyadii yacni wixii ka horeeyay sagaashameeyadii dawladihii ka jireen dalka waxa lagu ogaaday in labadan gobol ay aad qani ugu yihiin ama laga helaba macdanaha kala duwan sida macdanta uraniumta macdantan waxay faa'iido ugu jirtaa haddii la soo saaro gobolka yacni horumarka gobolka ay saameyn ku yeelan kartaa sidoo kale dhaqaale fara badan ayaa gobolka ka soo gali karo balse nasiib daro ma jirto dawlad isku mashquulisa waxyaabahan xataa iska daa inay isku mashquuliyaan ma jirto dawlad si buuxda u maareyso ama maamul si buuxda u maareeyo labadan gobol yacni labadan gobol waqti xadirkan dayacaad fara badan ayaa ka jira haddii uu dalka dawlad awood badan lahaan lahaayna waxaa dhici lahayd in labadan gobol ay si weyn uga faa'iideysan lahaayeen horumarka dalka iyo weliba horumarka labadan gobol qaas ahaanba yacni macdantan oo uraniumta loo yaqaan waa mid ka mid ah macdanaha ugu horumarsan ama la doondoonayaba dalalka qubad weyn si weyn ay u baadigoobaan inay helaan macdanahan kala duwan sideed u aragtaa macdantan laga helo labadan gobol oo kala ah Mudug iyo Galgaduud aragtida qaybta commentiga noo wadaag muuqaalkan la garay page-kana soo follow garay si aad u heshaan macluumaadyo xiiso badan oo dunida ku saabsan aad iyo aad u mahadsantihiin